Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kusoo dhawaada barnaamijkeenii aynu ku falanqayn jirnay ama aynu ku soo koobi jirnay buugaagta ay qoraan qoraayada Soomaaliyeed. Buugga maanta aynu ka warrami doonaa waxa qoray qore Maxamed Cali Bile. Buuggaas oo la yidhaahdo 100 tallaabo hore u qaad. Ciwaanka buugga waxa uu ciwaan yaro uga dhigay casharro aan lagu baran jaamacadda. Waa buug runtii aad ku horumarinayso naftaada. Waa buug kuu tilmaamaya waxyaabo badan oo laga yaabo inaad dhayalsanayso balse muhiim runtii u ah noloshaada. Waa buug runtii kuu tilmaamaya waxa ay tahay inaad qabato ee muhiimka ah, waxa ay tahay inaad ilaaliso, iyo waxa ay sidoo kale tahay inaad iska dayso. Buuggan oo ka kooban 10 qodob, 10kaas qodob oo ay ka sii hoos dhalanayaan qodob walba 10 qodob oo kale, waxa uu si guud yahay 100 qodob ama 100 tallaabo oo aad hore u qaadayso. Qodobka koowaad waxa weeyaan muwaadin noqo, oo iyadoo qoraalku uga jeedo inaad mar walba wadankaaga ka muuqato, wixii wanaag ah aad ka qayb qaadato. Tusaale ahaan haddii ay tahay maalinta xashiishka inaad ka qayb qaadato, haddii tahay maalinta xornimada inaad ka qayb qaadato. Qodobka labaad, isku kalsoonow oo meel kasta oo aad joogto kalsooni muuji. Qodobka saddexaad, labiskaagu ha ku farxad geliyo. Soomaali baa hore ugu mahmahday hugaagu uu kula bari tagaa. Qodobka afraad, hadalkaagu xiise ha abuuro. Qodobka shanaad, kororso aqoontaada. Qodobka lixaad, tuuji maskaxdaada. Qodobka toddobaad, maaree waqtigaaga. Qodobka sideedaad, xidhiidhi dadka. Qodobka sagaalaad, shaqo doono. Qodobka ugu dambeeya waa shaqadaada hano oo sii wanaajiso. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.